أصحابي كسر دواد برنامج كني scholarship iyo waxyaabo la xiriiro oo alaaba aad kala soo jirteen barteena Muqdisho Post run ahaantii waqti dheer ayaanu kala maqnayn oo caqabado fara badan iska jireen marka waa ku cudur daaranaynaa inaan barnaamijyada taxana ka dhigo weyno inta dabadeed waxaan ka hadli doonaa dhowr barnaamij oo hordhac u badan barnaamijkeena kooda wuxuu noqon doonaa maadaama lagu jiro bisha October waxaan la soo jirnay wax loo yaqaano DV Lottery 2025 ayaa furmay wuxuu marayaa maalintiisii afraad wuxuuna furmay 5 October waxaan kaloo ka hadli doonaa oo hordhac aan sameyn doonaa waxa loo yaqaan 5 group oo USA ay soo kordhisay waayadii dhaweed sidoo kale waxaan barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa barnaamijyada scholarship-yada xiriirkan oo ahaa jiray oo sida caadiyanaba xiliyadan oo kale aad u furmo waxaan ka soo qaadan doonaa 3 scholarship oo qaarna furan yihiin qaarna inagu soo aadayn insha Allah haddii aan u guda galno barnaamijka DV Lottery Mareykanka wuxuu furmay October 5 برنامج بدنا كاستمر دونا لكن هذا برنامج خاص تدك عن لصق عن كده بجينه دي في لوتري وعمريا السنة دي صدنات وحالة فري كون سجال بقول سجاشن يسدح دي ما أنت محل تجوا لو كن يسدح حلاتنك كنا أنتي سد عادي أنا بدي في لوتري وحقيقة سدح شن يصدم شن يكونتم كون oo loo yaqaano immigrant visa ay bixiyaan oo la siiyo dhammaan caalamka markastana sanad kastana wuxuu furmaa October ilaa November DV Lottery-ga sida caadiina markii axraysato waxaa la sugaa bisha May ee sanadka xigo oo noqon doonta 2024 bisha May waxaana qiyaasaynaa 4 ilaa 5 May inuu furmi doono in dib qofkii ay isu hubiso in ay heshay DV Lottery ama inay weysay sidoo kale 5 kun maadaama la qaadanayo inta badan waxaa selectiga helo wax 100 kun ku dhow laakiin fiisooyinka sida caadiina waa 5 kun oo laga yaabo dad badan oo selecti helay inay dib u waayaan waxaa kaloo dhici karto waxyaabii loo baahnay oo requirement-ii ku xirneed dad badan oo aan haysanin inay buuxiyaan dadkaas select markaa ay shuruudaha soo buuxi waayaan marka barnaamijkeena dambe ayaan waxaan uga hadli doonaa shuruudaha iyo waxyaabo la xiriiro laakiin waxaa muhiim ah in aad markasta akhriso waxyaabaha requirement-iga oo ku xiran DV Lottery-ga run ahaantii waxaa haysataa muddo bil ah oo maanta aan ka joogno 4 beri kaliya marka inaysan qof kasta inaysan degdegin ay isku daydo inay marka hore aruursato xogaha loo baahan yahay iyo requirement-iga haddii aad hayso requirement way adagtaa in aad ku guuleysato marka inaad waqti badan isaga lumin ayadana taasaan kugula talinayna intaa kadib DV Lottery-ga wadamo badan ayaan eligibility u lahayn ama loo ogolayn laakiin nasiib wanaag wadankeena Soomaaliya oo kumid ah wadamada u leh eligibility-ga ama ogolaanshaha loo siiyay in dadkoodu ay ku tagi karaan Mareykanka waxaa kaloo xusuus mudan sanad kasto wadamada helo DV Lottery-ga waliba wadamada aan dadkoodu ku badnay Mareykanka markasta waa loo kordhiyaa numberka waxaan rajaynaynaa sanadkan inuu sanadka Soomaalida noqdo oo number fiican ay heli doonaan waxaan halkaas ugu gudbi doonaa insha Allah DV Lottery-ga sidoo kale barnaamijka aan iska hordhiciisa sameynayno waa 5 groupka Mareykanka oo sanadan la rajaynay in dad badan ay ku bixi doonaan marka waxyaabaha shuruudaha ku xiran iyo conditionskiisa iyo waxa soo dhan barnaamij gaar ayaan uga hadli doonaa ugu dambeynta waxaan soo dhaadhacaynaa barnaamijka scholarship-iska oo aan rabnay xoog aan saarno maadaama taxana dheer oo noolaha barnaamijka scholarship-ka hadda waxaa furan dhowr scholarship laakiinse waxaan dhihi karnaa waxaa ugu qiimo badan scholarship-ka loo yaqaano
DAD ama DAD scholarshipka loo yaqaano oo bixiyo Germany. Scholarshipkaas inta badan sanadkan waxaan rajaynaynaa inay dadka masterka iyo PhD ay u badan yihiin dadka loo ogol yahay. Scholarshipka wuxuu furmay bishan horaanteeda ama dabayaaqada bishii 30 September ayuu furmay. Waxaan rajaynaynaa wuxuu xilmi doonaa 31 bisha December. Marka waqti dheer ayay qofku haysataa, laakiin waxaa ku xiran shuruudo badan oo qofka looga baahan yahay inay ka soo gudubto. Marka shuruudaha looga baahan yahay barnaamijkaas waxaan barnaamijka dambe ayaan ayagu caadi iyo PDF ka heli doontaan. Number 2 waxaan isku dayi doonaa inaan buubuuxino si aad u fahantaan maxaa la yiraahdaa qaabka qofka ay u geli karto ama ay haddii master rabto ama ay rabto PhD ay isaga buuxi karto, iyadoo laga yaabo inaad nasiib u yeelato inaad ku guuleysato barnaamijkaas oo number badan ay qaataan sanadiiba. Run ahaantii sida caadiyanaba Jarmalku wuxuu ka mid yahay wadamada waxbarasho ahaanna aad u sareeyo, nolol ahaanna wanaagsan. Ardayga wax ka baranayo waxaa laga yaabaa inuu nolol fiican ku noolaado inta uu wax baranayo, laakiin waxaa ku xiran shuruudo loo baahan yahay qofku inay ka soo gudubto. Waxaa kaloo programka ka mid ah oo programka waxay xoog ku saarayaan sanadda 2024 masterska iyo PhD-da. Waxaan kaloo ku jiro bachelor degrees, laakiin aad ay u yar yihiin numberka ay ku xuseen inay qaadanayaan sanadan. Laakiin waxaa aad uga faa'iideysan doona oo la rajaynayay inay number fiican ka heli doonaan dadka scholarshipska iyo dadka masterska iyo dadka PhD-da rabo inay qaataan. Marka qofka rabo master waa inuu haystaa waliba batch requirement-iga ugu xiran ayaga buuxin karo iyo master degree oo sidoo kale si ay u hesho PhD scholarship. Hagaag sidoo kale waxaa waqtiyada uu furmi doono barnaamijkii Romania oo sidoo kale scholarship Romania oo dad badan ay ka faa'iideystaan. Waxaa kale oo ayana inoogu xigi doono isla bisha ku xigto January barnaamijka la dhihi jira Turkey Bursary. Marka barnaamijyadaas hordhac ayaan usoo qaadanaynaa maadaama aan waqti dheer kala maqnayn. Waxaan rajaynaynaa barnaamijka xigi doono ku soo qaadan doono DP Lottery-ga oo aan ka bixi doono xog ballaaran. Aan isku dayi doono inaan sidoo kale qaab practical qof buuxinayo aan usoo dhigno inta aan barnaamij caynkiisa kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.